magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland waliba uu soo ku furmay ee shirlonku ku caransado xanaanka socdaalka iyo jinsiyada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya awil abshir Yusuf iyo warkaasi Tanindari dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay wadatashi ku aadan diyaarinta sharciga cusub ee socdaalka iyo jinsiyadaha oo la bedeli doona sharciga hore ee lagu dhaqmayay tan iyo sanadii 1966 wadatashigan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil ka socotay hay'adaha sharciga fulinta agaasimaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha maamul goboleedka Jubbaland la taliyaasha hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka Soomaaliya la taliyaha dhanka sharciga madaxtooyada Jubbaland iyo wasiirka cadaaladda dastuurka arrimaha diinta ee maamul goboleedka Jubbaland mudane Ibrahim Aadan Awxirsi hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa wadatashigan oo muddo 2 cisho ah socon doona soo qaban qaabisay wadatashyada ku aadan saameynta sharciga cusub ee socdaalka iyo jinsiyadaha ayaana la qorsheynayaa in dalka oo dhan la gaarsiiyo sida ay sheegtay la taliyaha dhanka sharciga hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Safiya Cabdullaahi Shire waxay tahay in aan sharcigii socdaalka ee dalka uu ku dhaqmi jiray ee ahaa sharcigii law number 9/1966 ee ka mid ahaa constitutionkii July 1st 1960 dalku markuu xornimada qaatay constitutionkaas uu ka mid ahaa sharciga socdaalka tan iyo waagaas ilaa haddeer sharcigaas maxay ahayd dalku ku dhaqmaa sharcigu markii la sameeyay baahiyada iyo isbeddelka mujtamaca ku dhacay maxay ahayd ma jirin waxyaabo badan oo dalku uu soo maray maxay ahayd ma tixgelinaynin marka sharcigii waxaa caddaatay in loo baahan yahay in laga dhigo mid ka tarjuma baahida maanta dalka Soomaaliyeed oo u qaba sharciga socdaalka iyo mid la socon kara oo la jaan qaadi kara shuruucda caalamka jirta adduunka marka markii ay dalkii waa isbedelay sida aad la socotaan wuxuu noqday dal federaal ah awal markii dalka sharciga la sameeyay wuxuu ahaa dal centralized oo hal dawlad leh agaasimaha laanta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha maamul goboleedka Jubbaland mudane Cabdisalaam Xuseen Xasan oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka wadatashiga ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay wadatashiga iyo ujeedka uu xambaarsan yahay oo lagu bedelo waxyaabo kale oo munaasab ka bedelkood waa la rabaa marka waxa la dhahaa hadda marka oo kulliyadaha ama jaamacadaha lagu baranayo law schools wax la dhaho course baa jira la dhaho law and society waa sharciga iyo bulshada waxa la rabaa sharcigu inuu had iyo jeer bulshada la socdo isbedelka bulshada inuu isula bedelo oo la socdo baahi markay timaado in lagu daro baahi markay timaado ama waxaan markaa wax jira maanta oo kala arin jirta oo berri kamaal isbedelaysa markaa arrinta isbedel yimaado in laga jaro lagu daro wixii lagu daro la naaxnaaxiyo lagu daro hadii jeer taas baa la rabaa marka sharci draft aan haysanaa laakiin waxa la rabaa moogtay waa khubarada oo dadka sidiina oo kale hormoodka ka wasaaradaha hay'adaha dawladda in maaragtay ay si fiican maaragtay soo qaada dhigaan wixii maaragtay oo fikra ee hayaan moogtay inaga Jubbaland ahaan qaybaheena oo dhan dawladda arrimaha maxaa la dhahaa warada bulshada hay'adaha maaragtay law enforcement la dhahaa ama fulinta ha noqoto immigrationkii ha noqoto maxaa la dhahaa police-kii ha noqoto nabadsugadii in ay ka wada qayb qaataan oo maaragtay wixii oo fikra lagu darsado wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa ka qaybgalayaasha wadatashiga laga ra'yi dhiibanayo sharciga cusub ee hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ku baaqay in ay talooyin wanaagsan ku biiriyaan khubarada ku hawlsan saameynta sharcigani sharciga maanta halkan aad uga doodaysaan ay muuqato in la sameeyay 1966 waqtigiisa ayuu lahaa markii uu joogay ayuu ahaa sharci ku habboon xaaladii lagu jiray waayo badan ayaa isbedelay ciidan military aan dalka waqti dheer buu haystay dagaalo sokeeyo ayaa darraa dhacay waa laga kabtay dawladdu way gaar ahaa la dhisay nidaam kale oo ka duwan
kii ay Soomaaliya ku shaqayn jirtayna waa la qaatay intaa waxaa dheer waxaa kale oo meeshii soo galay adduun guurahayo oo ka tegay meelihii uu joogay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay doonaysa in ay bedesho sharciga socdaalka ee la ansixiyay sanadkii 1966 kaas oo shaqeynayay in ka badan 50 sano. Cabdillaah Bashir Yuusuf TV-ga dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Kismaayo.